ku haysanaya haddaba dadka oromada ah Syrianka ah Yamaniinta u badan ee markaas deegaanadoodii ay ka soo jeedeen ka soo qaxay ee intaas oo kun oo kiiloomitir soo lugeeyay ee magaalada Hargeysa ganacsiyada ugu waaweyn maanta kule ee ganacsiyadoodii waliba iyaga kooto lagu xiray dadkaasi baa u baahan in la raafo oo dalkoodii lagu celiyo laakiin maatidan yar Soomaalida السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تدقالي قد لهانتي ملك سدون كاكو جوجتان واحد لين سو دوادا إن يوتيوب كسبسكرايب سارة مقالك لفتيس على قرايه وشير قرايه لو أصحابتنا سو كلا فكرة يا ركتادو أدو مهم نوين اسكو دينا حق وصاد مغربتان مر لباديو مقالك عوانك يسور كهالكورية لو تكسو أركتن ما فيليا وصبت على مقالك وداوان إنسان runtii waxaan jeclahay mar labaad inaan ka hadlo xaaladda gobolka Sool oo aan hore muuqaal uga diyaariyay muuqaalkaasi dad badan baa ka falceliyay marka koobaad waxaan rabaa dadkaasi qaabkan uga hadlayay inaan uga jahil saaro sidoo kalena aan uga jahil saaro in asbaabta aan uga hadlay sidoo kalena aan mar labaad runtii aan ka hadlo muuqaalkaasi iyo sidoo kale mowduucaasi ku aadan gobolka Sool ee magaalada madaxdiisa Laascaanood ayaan rabaa inaan si qoto dheer isku dul taagno hadii Ilaahay waqtigeena uu soo rogal ka dhigo soo meedan karo soo dhawaada okay asabta ugu weyn ee muuqaalka u hadlayay wuxuu ahaa in anigu ku soo hal qabsaday fanaanka weynaan macna oo runtii soo bastigareeyay in maqaal uu ku soo qoray barta kuleeyay Facebook in maqaalkaasi oo waxa macnihiisu in marti kale raafaysa in marka koobaad in horta hayn istul taagno marti raafaysa aynu si qoto dheer u micnayno in marti raafaysa horta gobolka Sool in dadka ku dhaqan in ee ka soo jeeda deegaanahan marti ma aha Soomaaliland marti kuma aha oo wadad Soomaaliland taa waa la isku ogay oo taas ummadaas Ilaahay iyo dhamaan bulshooyinka waa ogsoon tahay midda labaad in dadka markaasi laga saaray magaalada ee dib loogu celiyay gobolkaasi gobolada ka soo jeedeen gobolada dhexe Jubbooyinka in alaamstaan gobolada dhexe Shabeelle sidoo kale adigu dhamaan gobolada dhexe dadka ka soo jeeda ayaa badankoodu ay ahaayeen baydhabo oo kale soo meedan haddaba in anigu maan amaanin oo maan jeclaysan in uu arinkaasi uu soo galo macna la sababtoo oo fanaan mar hadduu qofku fanaan yahay ma qurux badna arrimaha siyaasadda inuu ku dhaxmilmo tawa looga qurux badan yahay waxa laga yaabaa hadalkiisan inuu deelqaaf dadka qaar u arkaan waxa laga yaabaa inuu hadalkan ma hadhareebo waxa laga yaabaa dadka qaar inay isku laayaan waxa laga yaabaa laba qof inuu qudha iskaga jaraan marka waa laga qurux badnaa nimcaan la inuu qaabkaasi uga hadlo mid labaad qaabka ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ula macaamishay dhamaan yani dadkaasi rayidka ama dadkaasi maatida ah anigu ahaan waan ka soo horjeeda oo maan amaanin gaalka dilbaareer gartiisa nasi soo meedan karan in horta dadka gobolada dhexe ka soo jeeda ee laga saaray ee dib loogu celiyay goboladaasi ay ka yimaadeen deegaan waxay ku ahaayeen sidii sheegayaan ama qoraalado ay ku soo qoreen ama muuqaal laga soo duubay 10 sano dhowr iyo 10 sano waxa laga yaabaa ubadkood inay ubada ku sii dhaleen soo meedan karan in horta dad gurigoodii ama meelaha ka soo jeedeen dhalashahan ama deegaan ahaan kibir kama soo kaxayn faakaysi kama soo kaxayn duruuf iyo dan jirta ayaa ka soo kaxaysay duruufaha iyo danaha jira waxa kamid ah dagaalada baahsan ee ka jira markaas gobolada ay markaas ka soo jeedaan soo meedan garan in horta marka koobaad Soomaaliland waa la mahadiyay oo runtii nabad ay haysato Ilaahay ha ugu waday ayay markaas dadku ugu yimaadeen iyagoo ila nabad baanaas la nuugale ee deganaansho qurux badan ka helay qaab qurux badan ula macaamilay intaas oo sano ku dhalay ku dhaqmay wax ku bartay haddaba waxa soo dhan waxa soo koobsaday oo maanta aana daata dabadood baa la qabtaayo xumeeyay waxa weeyaan arrinkan foosho xun ee lagu kacay ee in dhamaan maati yar oo aan waxba ogeyn guryahoogii deegaankoodii ganacsiyadoodii waxa ay xaq u lahaayeen oo dhan iyadoo aan xitaa la wacyi gelin oo san horeba muuqaalka ugu sheegay laga dul degay ee la kixiyay gawaadhi lagu guray la cabeeyay la raseeyay dibna markaasi loo mustaafuriyay taasi maan jeclaysan oo ma qurux badna waxa laga yaabaa inayniyo balaayo ba u sanqatay ma faliya xukuumadda inay qaabkaas qurux badnayn ummadda Ilaahayna way ogtay xukuumadda lafteedu dad kamid ahna way og yihiin oo way garwaaqsan yihiin inay xukuumaddu yani runtii aynay qaabkaasi ay u dhaqantay aanay qaab qurux badan aanay ahayn soo meedan garan haddaba in aynu istul taagno in xildhibaanada qaar Jamhuuriyadda Soomaaliland markaas ka sharaxnaa ku soo baxay
وسيدا حلبانada golaha baarlamaanka oo kale xildhibaan aan oo Maxamed Abi la yiraahdo oo dhalashaan ama deegaan ahaan ka soo jeeda gobolkaasi awdal ee magaalada madaxiisa Boorame ayaa bartu ku leeyahay Facebook wuxuu ku soo qoray yaani postiga halkan idinka muuqa postigan wuxuu ku aadan yahay runtii in aragtidiisa inaan qurux badnayn qaabka ay ula macaamileen markaasi dhammaan in dadkaasi maatida ama dadkaasi rayidka haddaba in si kastoo yahaato in ani ahaan qaabkaasi loola macaamilay dadka rayidka ama dadka maatida ma jeclaysan dad badan baa muuqaalka horaan soo galiyay qaabkaasi kagdisan u fahmay haddaba qaab kastoo muuqaalka aan soo galiyay u fahantay waad ku mahadsantahay ahmiyadu waa inaan ka hadlay mawduuca runtii gobolka Sool ka socda ama campaign-ka dadka lagu qaxaynayo lagu raafayo sidoo kale waxa isu taagaya in horta Soomaali baynu nahay runta markii ka wada hadalno in gobol runtii deegaan dawlad aynu samaysano Soomaaliya fahmay dawlad Soomaaliya la dhawa jirta dawlad Soomaaliya la dhawa jirta dawlad Djibouti la dhawa jirta dawlad sidoo kale NFD la dhawa ismaamul goboleedka Soomaalida Itoobiya la dhawa jirta Soomaaliya garan sidoo kale waxa jirta in reserve area dadka Kenya xagaas weey Soomaaliya fahmay haddaba wixina soo dhan ab iyo isir iyo dhaqan iyo diinba weyna wadaagna in Somaliland sadaqadu gurigaaga ka bilaabanta anigu waxaan u soo jeedin lahaa inta dadkaasi maatida ee rayidka Soomaalida ah ee nabadda iyo miciinka soo biday dhulka Somaliland ay degto ee runtii gaashaanka biday inay markaasi iska deyso oo runtii waxa dhacay iyo xumaantaana dib loo raali geliyo sidoo kale bilaadanimada la qiimeeyo diinta la haysto Soomaalinimada la qiimeeyo waxaan ogahay dadka Soomaaliland jooga gaar ahaan magaalada ku noolahay ee Hargeysa wallahi been idin sheegmaaye iska taa qof Soomaaliya qof Ethiopian oo Oromo hadii xitaa qof uu ku tacaadiyo wallahi meel baa looga soo wada jeestaa waxa la oranayaa war miskiinka maxad ku haysataa Oromada ma iska deys dadkii kala ku haysanaya haddaba dadka Oromada ah Syrianka ah Yamaniinta u badan ee markaasi deegaanadoodii ay ka soo jeedeen ka soo qaxay ee intaas oo kun oo kiiloomitir soo lugeeyay ee magaalada Hargeysa ganacsiyada ugu waaweyn maanta kule ee ganacsiyadoodii waliba iyaga kooto lagu xidhay dadkaasi baa u baahan in la raafo oo dalalkoodii lagu celiyo laakiin maatidan yar Soomaalida ee dalalkooda qaxiya dagaaladu ka socdaan wallahi ma qurux badnade Soomaaliland aan taasan aaminsanahay taana waan ku boorinay dhammaan xukuumadda dhibaato kasta oo runtii ka jirta baraha bulshadana dad un baa buunbuuniya dad un baa markaasi dhanba aragti kala gedisan u qaad Soomaaliland fahmin dadka qaar waxay aaminsan yihiin dadka YouTuberska magaalada Hargeysa jooga saxafiyiinta arrinkan dhex kama ahaan karaan oo xaqiiqada kama hadli karaan war ilma adeerayaal hadii lagu xiro iyo hadii kaleba runtu in ma adeerayna ka qabata ma qurux badna wax xumaanna ku hadlamayno inna ma fadeexadeynayno jiritaanka Soomaaliland runtii anigu kama soo horjeedno laakiin waxaan ka soo horjeednaa dadkaas iyo maatida rayidka ah ee dib loo gurayo ee aan waxba galabsan ee aan siyaasad waxba ku ogeyn ee aan waxba la socon ku dhawaad dhowr iyo 10 sano magaalada deganaa la socono intaas oo sano ku dhaqmo ku dhalay wax ku bartay ganacsiga ku sameystay inaan iyagoo xitaa aan la wacyi gelin oo la oran war waqtiga wixii ka urursada oo waqtiga ku diyaar garooba la guro la raafo Soomaaliland garan wargorma Soomaalida warma noqoto ilaahu khayr ka dhig aad baan maasantiin ma jecla muuqaalkayga ku dheeraado halkan mareeyada soo gaadhan waxaan ku codsanayaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan muuqaalka laftiisa la gareysaan oo aad share gareysaan labada saxaabtina tan iyo muuqaalka waxaan ku kulno waxaan kaga tagayaa نقول كلامته